ku dhaqan magaalada Looyacad ee xuduudka u dhaxaysa Djibouti iyo Somaliland ayaa ka hadlay duruufaha ku gadaaman magaaladaasi Looyacad iyagoo dadweynahani ay aad ugu nuuxnuuxsadeen xaaladda guud ee deegaankaasi iyagoo xukuumadda Somaliland ugu baaqay in si degdeg ah loo soo eego deegaankaasi sidoo kale dadweynahan ayaa jawaab adag waxay ka bixiyeen deeq raashin ah oo dhawaantan loo qaybiyay qaybo ka tirsan gobolka Sanaag iyagoo sheegay in deeqdaasi guud ahaanba aan helin ka deegaan ahaan qaarkood oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa gobol kasta iyo tuulo kasta gaara anagu waxaanu tuulada Looyacad oo ugu dad badan gobolka Sanaag la yiraahdo taasoo aanay soo gaarin halgadbadi sababtoo dhacday ma garanayno waliba anigu waxaan kamid ahay gudida magaalada tuulada Looyacad degmada wax tashiyan lama yeelan waxaan nagama siin nabalay soo gaaray waxa ugu soo gaadhay warbixin in leeyahay raashku way boobay reer Looyacad iyo laba toban maalmood ka Djibouti soo celisay halka ayagoo masaakiin ku go'aano xambaarsan oo aanay cidina waxba siin ilaahay mooyaane cidina waxba u tawaabin waxa weeye magaalada dulsaar ku yiin waxa weeye degmadaas waa nahabratay waxaan namay siin namanay soo hadal qaadin sababta ku dhacdayna ma garanayno in degmada haday tahayna waxaan la leeyahay soo noqdo oo dadka masaakiinta wixii la dib soo gaarsiiya haday xukuumadda tahayna waxaygi baan doonaynaa oo naga maqan waxna la siiyay ma jirto tuulo qoro qadina ma jirto gobolka kala baydho waxaan dib maqlayaabeen dhawato ka cabanaysa raashika nagu yar anagu raashika nagu yar nabal hinga dadina way soo gaadhay ma leen waxaan leenahay hadii ay dawladda tahayna waxaygi baan doonaynaa saar qaybsigaygi haday xukuumadda Saylax tahay ama degmada Saylaxna waxaan leenahay war waxaan idinka doonaynaa wixii aan idinku lahayn rahmatullahi wa barakaatu waxaan ka hadlaynaa degmada Looyacad waxaan la hadlaynaa degmada Saylax waxaan leenahay maayirkii shalay toolo lahaa waan doorna doorta wax baan nii qabanaya waan caawinaya dalka iyo dadkaba wax baan u qabanaya waxba nooma qaban dadkeegu waa wala masaakiin dhulkeegu waa wala masaakiin cid waxba nooma tirin waxba nooma qaban raashinka keenan haddaan u tagnana wayna soo eriyaan waxa yiraahdaan nima siinana Looyacadaatin haday noo keen ilaayeen oo wala baahanay dhulkeegu waa wala roob buulal baan galna rahmatullahi wa barakaat waxaan horta halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siirayo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici marwooyinkiisa labada gole qaran waxaan u sheegayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku xigeenkii u qaabilsanaa mucaawinoonka la keenay Turkiga keenay anagu haddaan nahay tuulada Looyacad in aanay jirin wax alla waxna soo gaadhay oo raashinka hore iyo taymkaan ka hadlaynaa waliba waa ta cusub waa tii shalay toolo la keenay wax la dhigay wixii maxay ahaydeen nagu yiri oo habnaa in Saylax la keenay oo la geeyay Saylax taayadina Saylax lagu qaybsanay wax keenay in Saylaxna la siiyo tuqoshina la siiyo tuulooyinka kale la siiyo Looyacadna laga reebay anagu horta ma garanno waxaan u sheegayaa maxay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa weeyaan meesha ugu badan ee maxay ahayd waxa weeyaan codka ugu badan gobolka Sanaag ka hesha waa Looyacad oo ay ka yimaadaan oo marti qaadno dadka ka yimaada reer Djibouti waxaan ku marti qaadnaana waxa weeyaan waa wanaag iyo in lagu soo doorto amba cid kale la doortaba waxaan u sheegayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu hoos noo soo eego degmada tuulada Looyacad Maxamed Cabdilaahi Shamiila News magaalada Saylax